kusoo dhawaada dhagaystayaal qisadan cajiibka ah. Waan hubaa haddii qisadan aad dhamaysato in dareenkaaga uu isbedeli doono. Nin iska shaqaysta oo ku nool wadamada Khaliijka ayaa muddo 4 sano ah markii uu shaqaystay oo uu helay lacag ku filan ayaa waxa uu doonay in uu guursado gabadh. Markaas ayaa waxa uu u tagay aabihii oo ahaa nin caalim ah oo wadaad ah, masaajidna imaamka ah, wuxuuna ka codsaday in uu u dooro gabadha uu guursan lahaa waliba uusan doonayn in uu la kulmo ilaa habeenka guurka mooye. Kadib aabihii oo ahaa nin caalim ah oo diinta ku xeel dheer ayaa u doonay gabadh diin leh laakiin aan qurux lahayn. Kadib markii loo gurigeeyay ayuu qolkii jiifka ugu galay gabadhii iyadoo xijaaban. Kadib ayuu ka qaaday xijaabkii mise aad ayuu uga naxay aragtida gabadha oo aan qurxooneen. Wuxuuna isweydiiyay aabaha muxuu sidaan ka waday oo uu kuugu dooray midaan xun. Kadib isagoo niyad jabsan ayuu iska seexday. Habeenkii saq dhexe markii la gaaray ayaa gabadhii kicisay ninkeedii oo ku tiri kaalay tuka salaatul layl. Markaasi ayuu ka diiday, iyadoona markaasi ka quusan weeday ayay kacday oo biyo soo qaadatay kadibna ku shubtay si uu u kaco. Markii uu u kacay ayay ku dhacday hadal qalbigiisa taabtay. Waan ogahay in aad iga niyad jabtay, waliba waan ogahay in aan fool xumahay, laakiin aniga waxaan guurkaaga u ogolaaday hal arrin, taasoo ah inaan fuliyo oo aan ka faa'iideysto ducada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo ahayd Allaha u naxariista ninka habeenkii u kaca tahajjud una kiciya xaaskiisa kadibna hadday kici weydo ku daadiyo biyo si ay u kacdo. Sidoo kale haweeneydii tahajjud u kacda kadibna ninkeeda u kicisa tahajjudka hadduu kici waayana biyo ku daadisa si uu u kaco, Allaha u naxariisto. Marka aniga sidaas ayaan rabay in aan sameeyo si Ilaahay igu naxariisto, waxaana ogaa fursad la igu guursan karo in ay yar tahay sababtoo ah ma qurxooni nin i rabana ma lahan. Ninkii aad buu isku ceebsaday, wuu kacay salaadii buuna tujiyay isaga iyo xaaskiisa. Sheekha sheekada ka sheekeynaya waxa uu yiri Ilaahay baan ku dhaartay. Ninkii wuxuu yiri markaan salaada ka baxay oo aan gabadha wajigeeda eegay waaba naagta dunida ugu qurxoon ee aan ebid fiiriyo. Subhanallah, u fiirsa sida Rabbi uu ugu abuuray jacayl qalbigiisa. haddii qisadan ay ku cajab gelisay la wadaag saaxiibada page-kana like saar. mahadsanidin.